بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. walaalayaal darsigeennan diiniga waxa uu ku saabsan yahay qofka muslimka waajib inay ku tahay ahalkiisa iyo owlaadiisa, weliba owlaadda kuwa mumayisiinta ahoo wax kala soocay iyo cid kasta oo maaragtay maamulkiisa ku jirta inuu amro ilaahay la adeeco iyo rasuulkiisa, inuu ka reebo ilaahay rasuulkiisa oo la khilaafo, inuu edbiyo, inuu ka reebo waxyaabaha manhiyo canhuga ahoo la iska reebo shareecada. marka hadda baabkan wuxuu noqonayaa baabun min abwaabi tarbiyati alawlaad, baab oo ka mid ah baababka waxaa weeye owlaadda tarbiyadooda ayuu maaragtay ka mid yahay. marka intaas waxaa waajib ah marka la leeyahay ahalkiisa, zawjadiisa iyo wixii markaasi ahalkiisa ahoo qaraabadiisa xataa waa ay soo gelayaan, laakiin ahalku markii la sheego waxau kusii dhacaa zawjada ayuu ku dhacaa. zawjada waxaa la rabaa in la tarbiyeeyo oo diinta la baro oo dabeecada wanaagsan la baro oo waxyaabaha xunkaa laga reebo oo loo naseexeeyo ayaa loo baahan yahay. owlaadda ayagana sidaas oo kaleentood wixii gabdhaha ama wiilal ah kulli waa ay ku jiraan. marka sidaas ayaa loola jeedaa, iyo qofkan dadka asaga racyadiisa ku jira oo masalanba waxaa dhici karta owlaadiisa owlaad kale oo asagu koriyow mas-uul ka yahay inay jiraan, dad asaga maamulkiisa ku jira oo asagu uu barbaariyo ama waxa weeye asagu uu nafaqeeyo ayaa jira. ayaguna dadkaas waxay noqonayaan dadka racyadiisa ku jiray noqonayaan. daacada ilaahay ayaa la farayaa subxaanahu wa tacaala, oo waxa weeye amarka ilaahay waxau alla amray oo awaamira ayaa la farayaa, waxyaabaha nawaahida oo ilaahay reebana waa laga reebayaa. sidaas ayaa markaasaa la doonayaa in lagu sameeyo, wixii ilaahay reebay in laga reebo ayaa loo baahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaalaane asagoo faraaya waalidka inay ahalkooda salaada ay faraan, ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha. aayaddaas markeedu hore khitaabka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ku jihaysnay, laakiin qof kasta oo mu'mina ayaa la amrayaa arrintaas. waxaa marka imaamu suyuudi kitaabkiisa la yidhaha igliilka uu ku sheegay, waajib insaanka waxaa ku ahow dhahay ahalkiisa inuu amro oo ama zawjadiisi ah ama waxa weeye addoonkiisa, addoon hadda maba jiree, ciyaalkiisa intiisa kaleentood taqwada ilaahay laga cabsado iyo daacada waa inuu faraa. gaar ahaan waxa weeye salaada ayaa si gaara markaasi waxa weeye ayaa loo farayaa. maxaa yeela xadiis oo uu leeyahay ibnu abi xaatim oo sayidinaa cumar binulkhadaab laga wariyey, waxau ahay sayidinaa cumar binulkhadaab wuxuu ahay: ida sayqada min alleyli aqaama ahlahu lisalaati. sayidinaa cumar markuu salaatuleylka habeenka u soo kaco ahalkiisa ayuu toosi jiray, wa talaa haadihi al aaya ayuu dhahay, aayaddan ayuu akri jiray asagoo dhahaya: wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha caamilan bikitaabillaahi wa sunnati rasuulillaah. asagoo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku camal falaya. dadka mu'miniintaane ilaahay waxau ku dhahay isagoo si caama
ula khidaabaaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeeno suuratu taxriim aayadda 6 weeye suuradda horena aayadda horena suuratu dahay aayadda 132 ahaaday dadka mu'miniinta ahow quu anfusakum ahliikum naara naftiina iyo ahalkiina naar ka dhowra ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala quu anfusakum waxa weeye naftiina ka dhowra macaasida ka taga daacaadka sameeya ahalkiina u naseexeeya edbiya maaragtay qur-aanka ku dul akhriya diinta bara saas weeye quu anfusakum ahliikum naaran ou dhahay naar ka dhowra naarta sida looga dhowraayo waa in dariiqa wanaagsan lagu toosiyaa naftaada waxaad naar uga dhowri kartaa aalkaagana uga dhowri kartaa marka awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na faray aada fartoonto waxa ilaahay naga reebana aada ka harto oo dadka lagu jiheeyo nafta lagu jiheeyo ahalka iyo owlaadda lagu jiheeyo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa lagu jiheeyo oo markaasi ay ku jihaystaan ilaahay inay caabudaan macaasida ay ka leexdaan arrintaasna waxaa la farayaa oo la rabaa sabab inuu u noqdo hidaayada ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala laakiin hidaaya oo bimacna dalaala oo tusina ayaa nalaka doonayaa waalidka waxaa laga rabaa inuu owlaadiisa uu tarbiyeeyo oo waxa weeye naartaas uu ka ilaaliyo hadda naartii waxa weeye waxaa looga ilaalinayaane waa in markaasi wixii ilaahay reebay laga reebo wixii ilaahay farana la faro oo sidaas markaasi wanaaggaas iyo akhlaaqdaas fiican iyo tarbiyadaas islaamiga inay ku barbaaraan ayaan ay owlaadii iyo ahalkii saas ay ku noqon karaan inay naar ka dhowrsadaan haddii faraha laga qaado oon amarkii ilaahay aanan la qaadanin waxaa imaanaysa arrintii cagsigeedaa imaanaysa in qofka isaga naftiisa markaasi naarti uu galo ahalkiisi iyo owlaaddiisina ay naarti galaan ayaa imaanaysa meeshaan marka hadda aayadda waxaa ilaahay noogu caddaynayaa in loo baahan yahay asbaab in lala yimaado asbaab ayaa la doonayaa in lala yimaado oo asbaabtaasu ay shaqayso ayaa la rabaa haddaad adigu asbaabta la timaado ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa kuu kaalmaynaayo marka waxaa la rabaa inaan anagu asbaabtii la nimaadoon marka ugu horaysa ilaahay iyo rasuulkiisa amarkooda inaan qaadanaa weeye markaan amarka qaadano fulinta ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala dadkii saasay ku fiicnaanayaan tarbiyada owlaadda waxaa ka mid ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam owlaaddiisa waa tarbiyay jiray gaar ahaan labadii wiil oo shabaabu ahliljanna ahay xasan iyo xusein oo gabadhiisi faadima binti rasuulillaah faadimatu zahraa ay dhashay xadiis abu hurayra laga wariyey saxaabiga jaliilkaa ayaa waxa uu dhahay abu hurayra akhada alxasan ibnu cali radia allaahu canhumaa tamratan min tamri sadaqati fajacalahaa fii fiihi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kakh irmi biha amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqata xadiis shaykhayn weeye bukhaariya muslimaa wariyey bal fiir hadda carruurtu markay yaryar yihiin waxyaabaha xuxun in laga reebo oo la baro shaygaanu inuu xun yahaa la rabaa oo intay yar yihiin la tarbiyaa la rabaa ilmaha intay yar yihiin la rabaa in diinta la baro akhlaaqda suuban la baro dadku hadday noqdaan faralagaqaad ay noqdaan markay macaasida bartaan oo naftoodu aysan ku barbaarin wanaagga hadhow ciddi ilaahay hanuuniya waa gooni laakiin tarbiyadooda aad iyo aad ay cuslaahaysaa tarbiyadoodu aad iyo aad ayay cuslaanaysaa qofkana xil baa ka saaran maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sayd xasan oo ilmo yar ah ayaa waxa uu qaatay xabba timira oo timirta sadaqada sekada timirta laga keenay oo nabiga agtiisa lasoo dhigi jiray ayuu canug yarow iska ahaayo xabba timir oo kala orday markaasuu afka geliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau dhahay soo tuf ayuu dhahay rasuulku calayhi salaam tuf ayuu dhahay waa kelimo ilmaha la yidhaahdo kakhin iyo kakh la yidhaahdo meesha hadda aan dhahna iyo maaragtay qurun irmi bihaa soo tuurow dhahay
markaasuu ka tufay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. markaasuu haddana wuxuu u sheegayaa asagoo hadda intaas la eg ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam shareecada arrintaas waxay ku tahay u sheegayaa. haddii la yidhaahdo ilmaha la quursado la yidhaahdo amba wax mataraayo ma fahmaayeen la yidhaahdo ay wax kasta iska sameeyaan, ciyaalku ayagaa ugu fiican weliba inta wax loo sheego. maskaxdoodu waxa weeye xaanshacad weeye, wax kasta ayaa ku qormaaya, wax kaloo mashquula ayaga kuma jiraan. wixii carruurnimada lagugu sheego weligaa xataa halmaami maysa. marka waxaa laga yaabaa dad inay is yidhahdaan hadda canugaanu carruur weeye wax ma ogee, markuu weynaadaa wax loo sheegaa. laa, intuu carruurta yahay in wax loo sheego ilmuhu wax ku qaadi og yihiin. marka rasuulku waxau dhahay amaa calimta miyaadan ogeyn xasanow annaa laa na'kulu sadaqata, annagu haddaanaha aalu beytka inaanan sadaqada cunin. maxaa yeele sadaqada rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday tahay mid farada sidii sekadoo kale iyo midda kale asaga iyo maaragtay aalkiisa xaaraamay ka tahay. maxaa yeele ayaga maqaamkooda iyo waxooda dhan ayaa sarreeya. marka haddee waxa weeye sadaqadunas amba sekadu waxa weeye awsaaqu-naas waayaa la yidhaahdaa, dadka wixii markaasi waxa weeye ku waajibayoo ilaahay jirkooda ku dhaqaayo weeye. marka ayaga maadaama ay markaasi derajadooda ay sarrayso ayaa markaasaysan u bannaanayn. laakiin hadiyada iyo maaragtay taasoo kale hadiyoo kale waa u bannaanta. maxaa yeele hadiyad sideedaba kuma timaado jaanibkaas oo markaasi oo dulligaa kuma timaado, laakiin waxay ku timaadaa sharaf ay ku timaadaa. riwaayad kalea waxay ahayd rasuulku waxa u dhahay innaa laa taxilu lana sadaqatu, annaga sadaqadu nooma bannaana. marka hadda fiir rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilmahaas yarkaa ayuu la hadlayaa. asagoo ilmahaas yarkaa ayuu waxau sii barayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam, diinta ayuu sii barayaa. in markaasi waxa weeye ay waxyaabahaas uu ogaado ayuu markaasuu barayaa. kaktu marka waxa weeye kelimatu zajrin lisabiyi weeye, waa kelimo oo ilmaha lagu cayaarto lagu canaantaan dhihi lahay, oo waxyaabaha mustaqdaraadka oo qarmoonka looga cayaarto. xasanna markaas canug yaroo sabi ayuu ahay. dhaqanka markaasi carab iyo cajami waa wada leeyihiin, oo qolo walba si ayay markaasay ilmuhu markay wax qaataan ama ay wax la ordaan saasay yidhaahdaan. tarbiyada markaasi awlaadda la tarbiyaynaayo oo jidka toosan lagu hagaajinaayo waxaa kaloon usoo qaadanaynaa cumar ibnu abi salamata xadiis laga wariyey oo la yidhaha cabdullaahi ibnu cabdilasad dhaho, nabigeena calayhi salaatu wasalaamna rabiibkiisa ahay. maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam umu salama ayaa nabiga zawjaadkiisa ka mid aheeday. marka waxa weeye canugaasna waxaa weeye nabiga gurigiisa oo kusoo koro umu salama ayaa dhashay. marka maalin ayaa waxaa jirtay asagu ka warramaaya maaragtay cumar ibnu abi salamata ayaa waxau dhahay kuntu gulaaman fii xajri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wa kaanat yaddii tadiishu fi saxfati faqaala lii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yaa gulaam sami allaah wa kul biyamiinika wa kul mimaa yaliika famaa zaala tilka dicmatii bacdu. rawaahu shaykhaan. waxaa weeye marka bal u fiirso sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam carruurta u tarbiyeynaayay. ilaan annagana hadda ilaahay waa towna dhahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun. ilaahay rasuulkiisa waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan. marka haddee nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa inaan ku dayanno oon owlaadeenna iyo ahalkeenna iyo mujtamaca aanu barbaarinno ayaanu kaga baahan yahay. qof kastaba inay xil isi saartaa la rabaa. carruurta waxa weeye tarbiya xumada waxay ku noqdaan dad xuxun bay ku noqdaan, mustaqbalkooda ayaa ku hallaaba, akhlaaqdooda ayaa ku dhimata. marka qofka waalidka ah ama mas-uulka ah inuu wax tarbiyeeyo ayaa loo baahan yahay. waa u dhahay markaasi waxaan ahay wiil oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la nool ayaan ahay, oo dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam kafaaladiisa ku jira ayaan ahay. wa kaana yaddii tadiishu fi saxfati, gacantaydana xeerada ayay ku duulaysa u dhahay. markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wax la cuni jiray. marka haddii xeerada la keeno gacantaydu markaasi xeerada dhexdeeda ayay ku haadhaadaysay. waxaa la rabaa markaasi in meesha asaga qofka u xigta oo asaga ugu dhow inuu wax ka cuno, gacanta marka halkaas oo kasoo qaada. waa ilmo yar, marka meel walbuu gacanta la aadayaa. marka hadda asagu waa ilmo yar,
laakiin ilmihii in wax la baro sow lama rabo. waxa u dhahay markaasi cumar, nabigaa waxa u dhahay markaasuu yidhi yaa ghulaamu dhahay wiilkaan yarow sami illaah ilaahay magacow oo kow intaadan cuntada cunin bismillaahi dheh, ama haddaad baysa bismillahi raxmaan raxiim bismillaahi kaafi wey. bal fiir hadda bismillaahidaas qof kastaa laga doonayaa, qof yar iyo qof weyn waa laga doonayaa. ilmaha marka saas markii la sii baro ilmuhu waa ku barbaarayaan, ilmo fiican bay noqonayaan. haddii laakiin waxa weeye waxaas aan la barin oo ambase qofku weynaayba oo bisinka uusan ku bilaabayn, shaydaan baa la cunaya. waxyaabahaas hadda marka shaydaanku gacmaha gelaayo waxaa dhici karta xataa in waxyaabo badan oo ay keenaan, oo cudurro xun ay keenaan, oo caafimaad darro keenaan, oo jinni ay keenaan, oo waxyaabahan surcada ay keenaan ayaa imaan karaysa. waxaasoo dhan waxaa looga nabadgelayane waa isinka ilaahay. marka ugu horayso u dhahayuu rasuulku war wiil yahabow ilaahay magacow, wa kul biyamiinika, haddana midigtaada ku cun. midigta ayaa lagu cunayaa, maxaa yeele midigtu waxay maaragtay ku shuqul leedahay waxyaabaha markaasi oo wanaagsan oo maaragtay mustadaabka oo diibka ayaa loo isticmaalaa. waxyaabaha mustaqdaraadka ah oo qarmoonkaani bidixda ayaa loo isticmaalaa. marka haddana qofkii bidixda uusan macduur ka ahaynin, waxaan dhihi lahay hadduusan midigta macduur ka ahaynin waa inuu midigta ku cunaa. midigtu hadday macduur kaa noqoto bidixda daruur ahaan waa ku cuni kartaa. wa kul mimaa yaliika u dhahay haddana waxaad yeeshaa weelka meesha adiga kula xiriirta oo adiga ku xigta meeshaas ka cuno u dhahay wuri. famaa saala tilka nicmatii u dhahay cuntadaydi inay sidaas oon kayfiyadaas waxu cunaaya ka mas-uulna u dhaha marka. bal fiir hadda sidoo tarbiyada u qaata. waxaa tarbiyada carruurtu say u qaadata dadka waaweyn u qaada maayo. maxaa yeele carruurta maskaxdoodu maskax furan weeye, wax kastay diyaar u tahay. marka waxaa la rabaa maadaama carruurtii maskaxdooda ay sidaas tahay, wax kasta diyaar u tahay in markaasi waxa weye arrintaas laga taxadiro. sidaas marka waxa weeye waa maaragtay sida nabigeena calayhi salaatu salaam uu ku tarbiyeynayey ee maaragtay awlaadda, annagana naloo kaga baahan yahay inaanu ku tarbiyeyno. salaada markii la yidhaahdo, camar ibnu shucayb ayaa wuxuu ka wariyey aabihiis amase jadkiisu asna kasii wariyey. waxau dhahay markaasi qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam muruu awlaadakum bisalaah wahum abnaa'u sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin wafariquu baynahum fi lmadaajici. xadiis xasana weeye, abu daa-uud ayaa sanad wanaagsan ku wariyey. waxau dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam owlaadiina fara salaada, owlaadda salaada ha la faro waqtigii ay soo gaaraan ou dhahay 7 sano ay soo gaaraanoo hadda 7 sano waxa looga dhigay sida qaalibkaa ilmuhu tamyiis waxay ku yeeshaan oy hawshooda la gooni noqdaan, musqusha galaan, kusoo saxaroodaan, kusoo dahaaro qaataan, ee weelkooda meel gooniya la tagaan wax ku cunaan, hawshooda qabtaan, sariirtooda ay gogladaan, ay seexdaan. marka waxa weeye da-da markaasi 7 sano markay kamishaan, weliba markaas ka bacdi ayaa madarisadii ayay markaasi haddana u suubadaan. marka waa jiraan owlaad oo markaasi aad iyo aad maaragtay maskaxdoodu u fiican tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cinaayo uu siiyey oon ayagoon gaarin 7 sanoba wax kasta fahmaayo, 5 sano jir iyo 4 jir markay yihiin xataa waxa weye maskaxdooda furan tahay. laakiin sida qaalibkaa markii la yidhaahdo ilmaha maskaxdooda waxay furmaysaa markay 7 sano ay kamishaan. marka nabigu leeyahay wahum abnaa'u sabcin waa ilmaha 7 jirka. waxau ka wadaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida qaalibka waxa weeye waxay tamyiiska ku yeeshaan 7 sano weeye. weliba 7 sano markay taam u noqotaa la rabaa. salaadii baa la farayaa, waxaa la leeyahay salaadaa jirta, salaada dukaa la leeyahay. salaada duka ilmahaas yarkaa markii la yidhaahdo salaada waa dukanaya, oo weliba markaasi waalidkiisa u dhaho, waalidkiis marka u dhaho salaada waa dukanaya. markii intaas la soo joogo wadribuuhum calayhaa salaada ka tegitaankeeda ku garaaca u dhahay, ku canaanta. wahum abnaa'u 10 markay 10 jir yihiin. maxaa yeele 10 markuu gaaro waxaa u soo dhow
mukallafnimadiya u soo dhow markaas in lagu adkeeyo oo lagu canaanto ayaa loo baahan yahay salaada inuu guto weeye waa laakiin markay diidaan larbi laakiin canaan waxa weeye aan meel laga bararihaynin maaragtay wejiga la iska ilaalinaayo ilmaha tumid ina la tumo amba maaragtay yaa la dilo jirki laga barariyo amba maaragtay jirka la gooyo maaragtay ma banaana taas tarbiyada ma ahan sidaas waalidka iyo mucallimiintaba ilmaha markay maaragtay ay gaarto in la canaanto wax aan jirkooda bararihaynin oo markaasi sidaas ayaa la leeyahay ilmaha markaasi aan iska garaacayno ama mucallimiintu ilmaha ay maaragtay ul intaas iska soo qaataan dilayaani korkooda dhiigga ka keenayn taas shareecadu uma ogola dembi weeye arrintaas xataa waxa weeye naagta naashisada derajada markaasi ugu dambayso markaasi larbiga oo nabu ilaahay u dhahay quraanka subxaanahu wa tacaala alla uu ku sheegay waxa weeye larbi oo qayr mubarrixa weeye waa garaacan wax bararihaynin ul waaweyn iyo markayna loo daydo markaasi qofka dumarka ahay la dilo oo meel la dhigo markaasi meel walba laga jebiyo oo waxa weeye dhiig laga keeno xaaraan weeye taas qofkii saas yeelana waa la dacweynaya sharci baa maaragtay maxkamada la saaraya inta xaqa u lahay ma ahan weeye ilmaha laftirkooda saas weeye intaas wixii ka badan macallimiintu xaq u mala ayaga laftirkooda waxaa la rabaa in dadku shareecada ay bartaan oo waxa ay ku kacaan inay fahamsan yihiin haddana rasuulku waxa u dhahay wafariquu baynahum fi lmadaajici jiifkana ha lagu kala saaro oo cunuga mumayiska qayrkiisi uusan la baashirin xagga maaragtay madaajicda oo waxaa la rabaa ha la yidhi sariiraha in loo kala duwo isku sariir aysan ahan marka hadda sabigu arrintan lagulama khidaabin laakiin waxaa lagula khidaabayaa ilmaha markaasi dadka owliyadooda oo mas-uulka ka ayaa la faraya weeye saasaa markaasaa leeyahy marka hadda in madaajicdane lagu kala saaro ayaa loo baahan yahay haddii la helaayo xataa baydadka markaasi ay jiifanayaan in markaasi lagu kala saaro maxaa yeele waxaa la diidayaa midka kale cawradiisa inay u daahirto waxyaaba sidaas inay yimaadaan meeshii akhlaaqun ay ka dhalato ambase wejigiisu waxaan fiicnayn uu ku dhaco ayaa loo baahan yahay wejigiisa wax fiican inuu ku dhacaa la rabaa laakiin waxaa la rabaa indhihiisu aysan ku dhicin wax xun aysan ku dhicin aan dhihi lahay indhihiisa wax xun ay ku dhacayn in laga ilaashaa la rabaa marka sidaas ayaa waxaa la rabaa owlaadi in loo tarbiyeeyo oo markaasi tarbiyadaas wanaagsan la siiyo ayaa loo baahan yahay riwaayad kalea waxay ahaaday ambase xadiis oo abi sarwa waxaan dhihi lahay abi suraya laga wariyey sabrata ibnu macbadin aljuhani waa uu dhahay rasuulku wuxuu yidhi callimu sabiya assalaa lisabcin sabiga salaada bara markii waxaa weeye 7 ay u kaamil noqoto wadribuuha calayha ku garaaca ka tegitaankeeda markuu yahay ibnu 10 10 jir uu yahay ibnu 10 siniina markuu yahay 10 jir markuu yahay ayadana saasaa la yeelayaa marka intaas waxaa la rabaa mustaqbalka inuu qofku qof fiican u noqdo haddaan marka jiilalka hoos laga soo dhisin oon owlaadda meel fiican laga soo dhisin oo intay yar yihiin lasoo dhisin waxa weeye jiil baaba ayaa imaanaya oo faasida oo balaayo kusoo barbaaray inuu wax xado inuu wax dilo inuu wax dhaco inuu maaragtay diin uusan lahayn inuusan salaad dukanin haddee dadka daysana hadday iska ahaadaan saasaa ka imaanaysa waalidka marka xilka saaran waa inuu qaataa owlaaddana waa in shareecada lagu barbaariyaa marka darsigeeni diiniga hayne intaas ayuu ku eg yahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد